ممكن يلا صوت دافي يلا صوت دافي ماذا يحريها كي شغل اسمع تقرأ لي لا كتب اسمع أصلاً بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله maanta maalmihii weynaa oo taariikhiga ahaa ee Soomaaliya waayahan dababa soo maray kamid tahay maanta waxa xafiiskii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xil wareejintiina oo ay steepskeedii kamid tahay waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada hay-adaha kala duwan dawladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo 4 sano la soo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama dawladda dhexe joogan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogaan aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan iraado shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaaro marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada bale ma haddaasaan u jeedina dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto mahad celiyo beesha caalamka ayadana 4 sano aan soo joognay xafiiskayga iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha waa intaba si wanaagsan ula soo shaqeeyay soo saaciday soo garab taagnaay muxuu ahaay maanta noo suurto galiyay inaan meeshan soo gaarno ugu kaalmay ayaguna waxaan rabaa inaan mahad celiyo si khaas ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka ciidamada AMISOM u soo diray Soomaaliya ee wiilashooda iyo gabdhahooda dhiigooda Soomaaliya ku baxay qaar ku dhinteen qaar ku curyaameen caruur badan ku agoontooday oo dalalkoodii maanta jooga walina qaar u taagan yihiin in ay Soomaaliya ka sii saacidaan sidii ay lugeed ugu istaagi lahayd waxaan leeyahay ayaguna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw oo insha Allah ku fududeeyo khayr badan iyo guul aan ku rajaynayo aad iyo aad بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka hore rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynihii hore sida habsamida leh tiimkiisa shaqaalihiisa ay ula shaqeeyeen tiimkayga transitionka
iyo sida habsamida leh ee xil wareejinta ay u dhacday waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dawladnimada runtii waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaareynayaa dawladani waa dawlad shacab idinka iska leh idinkaan dib idinku soo celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqeysaan dawladdan oo aad gacan siisaan idinka iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqeysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha haddii noqoto nabadgelyada inay ilaashataan ayaa la doonayaa dawladdan ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaaraha haysta ilaahina aanu noqonno aan iswada cafinno kulligeen dad waalaan wada nahay kulligeen waxbaa naga halaabay laakiin aan u qaadanna hadda inaan hurdadii ka kacnay waan isweydiinno xaggee joogtaan waqti fiican yaa soo socda waa wada shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dawladdan meesha ay joogtay ay soo gaarto amisom iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen waxay ka difaaceen maxaan ku rahay dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ay ku siiyeen dawladda inay sidaas noqoto ay shaqayso waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku rahdaa dawladaha ciidamada halkan ay joogaan waan wada shaqayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ilaa aan ciidamadeena dhisanno kadibna iyagoo waalaheena oo taariikh wadankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan hadduu Ilaahay yiraahdo waa inaan u mahadcelinno shacabka Soomaaliyeed waa inuu mahadceliyaan ciidamadaas siiyay naftooda u horay naftooda maxaan ku raahdaa wax kasta oo bini aadan siin karo wax nafta ka weyn ma jirto ugu dambaystii xaalad adag ayaan ku jirnaa wadankan 26 sano wuxuu ku jiray dhibaato iyo burbur iyo qax iyo dawlad la'aan hal habeen iyo laba habeen iyo 5 bilood iyo 6 bilood waxba kuma hagaagi karaan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay fahmaan intii aan wax burburinaynay ama dib ku dhacayay in lamida yaa loo baahan yahay dalkan inuu istaago oo caalamka la tartamo aniga shakhsi ahaan waxaan ballan qaadayaa hadduu Ilaahay yiraahdo inaan idin keeno dawlad aad ku kalsoon tihiin oo magaciina iyo sharafkiina kor u soo qaada oo caalamka la tartanta idinkana waxaan ka rabaa shacabka caalamka inaad la tartantaan oo aad kula tartantaan inaad nabadgelyada kala shaqeysaan dawladda inaad wixii waajibaadkiina ah aad gacan ku siisaan dawladda waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
ورسك بعدها كسي وحي يا إلهي روح معي فيني قول هذا دي مية صراحة أغلى مية سعيد ماما هي خمسة بحدة فيري ملايين لو انت تجينا ما تشلاقي شوف ليه سلام حدا بالي ما منتهى سعتها لا لا هذا لا عين بعد قرطي كاس كرفورة واحد يقول بس ما حاجة ما تفكرني بس ما سكر بس اللي جاب صور
شعب بربراينو إبراهيم جاب الهواء وقربت مسيني xilli wareejintan maanta oo xilka uu wareejiyay madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuna wareejiyay madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay ka qabsantay aqalka madaxtooyada ee dowladda Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya xukuumadii hore wasiir ka tirsan iyo sidoo kale taliyaal ciidamada booliska ay kuwa nabad sugidda waxaana sidoo kale halkaasi ku sugnaa ciidamada baanbooda halkaasi ku soo bandhigeen hees ka tarjumaysa calanka waxaan intaas kadib la guda galay in madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si halkaas uu ugu wareejiyo dokumentiga madaxtooyada iyo sidoo kale waxyaabaha kale muhiim ku ah dowladda Soomaaliya intaas kadib ayayna hor yimaadeen saxaafadda oo halkaas ay kula hadleen ugu horreyn waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud asagoo sheegay in 4 sano uu soo shaqeeyay ee dowladda waxyaabo badan ay qabatay maanta waxaa xafiiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la wareegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xil wareejintiina muxuu ahay stepskeedii ka mid tahay waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan bulshada hay'adaha kala duwan dawladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo 4 sano la soo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacaya inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama
dowladda dhexe ha joogaan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogaane aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan idhaahdo shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaadho marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada bale ma haddaasaan u jeedina dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw hawsha Allah ku fududeeyo khayr badan iyo guul aan ku rajeynaa aad iyo aad maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya ayaa isna hadal qaatay wuxuuna ka hadlay waxyaabaha horyaala dawladda Soomaaliya iyo sida habsamida leh ee xil wareejinta ay u dhacday waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dawladnimada runtii waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaareynayaa dawladani waa dawlad shacab idinka iska leh idinkaan dib idinku soo celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqaysaan dawladdan oo aad gacan siisaan idinka iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqaysaan haddii noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha haddii noqoto nabadgelyada inaad ilaashataan ayaa la doonayaa dawladdan ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta ilaahina aan u noqonno aan iswada cafinno kulligeen dad waalaan wada nahay kulligeen waxbaa naga halaabay laakiin aan u qaadanna hadda inaan hurdadii ka kacnay waan isweydiinno xaggee joogtaan waqti fiican yaa soo socda waa wada shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dawladdan meesha ay joogtay ay soo gaarto amisom iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen waxay ka difaaceen maxaan ku rahay dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab ku siiyeen dawladda inay sidaas noqoto ay shaqayso ugu dambeynta ayaa la soo galbiyay halka uu ku fisanaa rooga guduudan halkaas oo calanka uu madaxweynihii hore dawladda Soomaaliya uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub xil wareejinta madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo maanta xilka uu ku wareejiyay madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa in madaxweynaha cusub ee shaqadiisa ay bilaabato maadaama 4 sano soo socota uu hogaamin doono dalka Soomaaliya waxaana laga dhowr sugayaa sida uu shacabka Soomaaliyeed u hogaamin doono muddada 4 sano ee soo socota waxaana sidoo kale halkaan laga soo gootiyay madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud dalmariisu macalin wararka STN Muqdisho نيجي الباب كجو أمر السيكول وعلي رقف البص حافظ ويماذا رحال قال صباحنا فيصل حرالي ما هو حوا يخل لسه الحين كمان كاس ما نكمل كاس حكاو دروني هذه والله مركي حوش الجديد بقى الغنيم حوله عندنا الجديد مركي الغنيم